الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقول كأني ما لها الحمد لله هذا النظام بركيسن بركة ذي كنت من هبه والمرة انستغرام إيو ولا أصحابته لأن يرد على كلمه إن شاء الله تعالى عاوز سؤال مجريان لكن هذا اللي يركوبا لأنه لو محاضرة وكلا ضمبان ليه هاي والله يفكر لي دونا مركا بل سؤال إذن حق هذا السؤال بانكو يعني مارتي جودهان أو أقنهان بل لو فائدته أيان جعلها إن شاء الله تعالى كجوابه مركب محمد محان واهسا شيخنا هورت سؤال عادي هو بدنيهين عاوز وقت وما هي إنه هبين دم كدي عندنا هدي الله يدمو إن شاء الله شيخنا ما أنت برت هذا إنستغرام كسؤال أذاك سوقري سؤال شاسان ربنا مركا إنا كويدينو أو وحا أولجيدو النوفا فاسي شيخنا ما أنت وحا تريوا سؤال عن جواب بوحدة ولي أهلين دل يدد هيستحورو بد يبري خيرات كلنا وديريهين سيديبو سوالكو نقضي شيخنا أنا وأقنا هاي إني سوماليا ليدا هاي بدوين حيبتي ودير وحوي أفريكا محال داي حولو يا خيرات بدن ليدا هاي لبوي بليدا هاي دول بيرت هاي laakiin iyadoo saas Soomaalideena oo dhan wada ognahay haddana de waxa saa sheegtay waxa way dadkeena gaajaan u dhimanaa oo maalin kasta meelahaas aan daadsanahay marka sheekh arintan maxay ku timay sidee looga faa'iideysan karaa dhalintan maxay muhiim ugu tahay arintaas aan rabnaa bal inaan naga jaahil bixis maxamed waa war wanaagsan waxa weeye horta waxaan su'aashaas idin la wadaagayay waxaad u badan tihiin dadka halkan ku jira sida aan ku hayo xogta Facebook ama Instagram-ka waa dad u dhaxeeya 18 ilaa 32 sano waa dhalinyaro bay u badan yihiin boqolkiiba 85 dadka halkan dhigaysan marka mustaqbalka ummadda waa iyaga نادو دتك أنت كوين كنت نجر لحدين جر تدبادين عمري ومضى مركز الحساب يقفل بإله بعمري سهيل لكن ويسيس عضان هذا بس يبحي أنا دونك كون وسوق ليان هذا يسوق ليان دونك وأكل أسبوع مركز جنريشنا إسلافية مركز قصة وحان إدين سوق هذا مثلا القرآن كجرتا نبي موسى عليه السلام أيا إلهي وحو كيري ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم دول كان بيت المقدس بقى واجاس انت لسي يوحى لي رجاله وما ذكروا قالها بتشوفي وزنك النبي موسى امر كي وشاغي مركو وشاغي ايا ويديدين سيده انو ده القران وحي يراهدين اذهب انت اديق الها ارضيتك وليقود way af adkaayeen reer bariis ilaaha weydii ilaaha noo weydii hatta iyaga kuwii nabiga raacay way markaas waxay leeyihiin sidoo isaga aan ilaahoodii ahayn Muuse ilaaha noo weydii waxaas ilaahaga noo weydii baqarada noo weydii jid ilaahaga noo weydii marka waxay dhaheen adiga iyo ilaahaga ordaya taga oo dagaal gala anagu ma tagayna meeshaas ilaahay subhanahu wa ta'ala Muuse wala calay nabi Muuse alayhi salaam wuxuu yiri aniga iyo walaalkay Haaruun ma ahayn cid kale ma ahayn dhulkii aadna tiriqaatana ma tagi karo labadayada kali iyo laba nin oo mu'miniina oo aayaduhu sheegay oo hadlay oo yiri warnimayo warka nabiga qaata oo waxa la idin sheegay qaata oo dhulkii ilaahay idin yaboohay aada laba nin qala rajulan min alladina yakhafun an'ama Allahu alayhima ay asasi udkhulu alayhim albab kagal bani israa'iil waxay yiraahdeen idhab anta wa rabbuka faqatil adiga iyo ilaaha orday taga waxaa dhacday marka ilaahay cuquubo ku xukumay wuxuu yiri iska daa ha ka walwalin nabi Muuse markii uu nabi Muuse calaa yiri waxa ma gahayn kan 40 sano ayay duurka wareegayaan buu yiri waa lagu xukumay reer bani Israa'iil nimankii markaa joogay generation kii joogay waxa lagu xukumay markay diideen amarkii 40 sano inay duurka cidlada ah wareegaan saa isaga daba wareegaan isdaba wareeg waxa la yiri subaxdii meesha ka jarmaadaan bay galabti gabal dhici ku soo noqon jireen oo meesha saaka ka tagnay si fiican meesha taagi haddana subaxdii bay bilaabaan say maanta oo dhan u wareegayaan saxaraha bay haddana saaka meesha ka dhaqaaqeen bay ku war meesha saaka ka tagnay waa ila meerayso
وحاضر صومالي ترى جيل كاسو مركا وحا ليرا فرتن كاسم هل كاسو كجريان نبي موسى عليه الصلاه والسلام واغيريودي iyadoo 40 kii lagu jiro هارون عليه السلام waa dhintay iyadoo 40 kii lagu jiro wiilal yar yar oo markaas dhalinyaro ahaa ayaa soo kacay kuwii hore waa dhamaadeen odayaashii diiday inay wadada fiican raacaan oo dhulkii ilaahay siiyey qaataan way dhamaadeen ila meereysay ku dhamaadeen ila meereysay markay ku dhamaadeen dhalinyaro cusub aa timi oo cartooda qabto ilaahay ku kalsoon dhalinyaradaas ayaa galay meeshii ballantii aabbayaashood la siiyey iyaga xaqiijiyey iyagii baa galay ilaahayna subxaana wa tacaala guushiisii hadda waxa weeye waxaan arrinkaa u leeyahay dhalinyaro annaga isku daba meeraysiyaan ku jirnaa aniga dadka facayga ah oo hadda siyaasadda ku jira oo dalkiinaas buuxa saas u buuxa dalkiin dadkiinana hadda sabool baa ka tihi idinkaan hadda deeqo waxbarasho meelaha laydinka soo sii yacni qaxooti baynu u badannaa cimrigeena saadan ku dhammaysan iska daba wareeg siyaasadeennuna 30 sano iyo 20 sano ka badan waa iguma ila meerayso saaka meeshaan ka tagna caawa lagu soo noqonaa si fiican dadkan wax haba yaratay xaqiijin karaan ma muuqato sidaas darteed baan idinka anigu xoogeen saaray in leeyahay sidii aabbayaashiin ha noqonin ila meeraysada lacalla inaad idinku Soomaaliyadaas aan sheegayo ku riyoonayo inaad idinku samayn doontaan sidee u samayn karnaa marka aanu imaado marka sheekad hal shay aan soo qaadana aniga meeshaan waxaan ku sheegay dal xoolo leh xoolo waxaan ka wadaa xoolaha la dhaqdo geel iyo ari iyo lo si fiican ma yifaham ari ma soo aragtay ari aad mise geelay baa ahaan jirteen mise lo ley anigu ari ley baa ahaan jirtay si fiican waxa laga yaabaa reerkiina inaad soo gaartay tiro ari ama 2 tiro ari ama 3 tiro ari inay leeyihiin si fiican tiro waxaynu oran jirnay 100 neef marka dhowr 100 oo neef inay leeyihiin baa dhici karta reerkiinu mar dambena geelay baa noqonay geelayna waa noqotay qaar 500 oo geela 600 oo geela 1000 geela leena wali waa joogaan kun lo ah kuwalihina waa joogaan haddana waa laga gaajaysan yahay maxaa dhacay looga gaajaysan yahay sababta looga gaajaysan yahay maxay tahay iyadoo intaas oo xoolaha la haysto waxa weeye maamul xumo caqli xumo aqoon xumo amaana xumo intaas ugu weyn أنا قياستي عقلي حمو عقلي ودا وعمي عقلي وحكو فكرة قبيالد كان دين عاقه يفيري ميل كلام ما فيريا قرب ما فيريا دتك الصوماليين عدجو سيفيع رير هبل كدين عيسى عيل بي ku diriraya ceelka warceelku idin ka badan kuwa kale oo ceelalaha jira maxaad aydiga ugu daadinaysaa garan waay caqliga baab dhaawacmay qabiil baa ka buuxsan waxa kale oo ka buuxsan aqoon daro jahilnimo umadaha waxa baabi'iyo way qofka jaahilkaana intuu isagu is yeelo dadku ma yeeli karaan waxa kan uu haysta inay hanti tahay ma oga si fiican adduunkuna u baahan yahay tusaalan ku siinaya xoolaha hadda adduunka adigan ku weydiinaa nin dhalinyaro tahay wadan xoolaha ka timi xoolihiina waa samaysatahay adduunka xoolaha yaa ugu dhoofin badan hadeertaan adduunka yaa ugu dhoofin yaa lacagaysta dollar ka lacagaysta xoolaha riyaha iyo ariga iyo idaha leedihiin oo kale sheekhana anagu arigeena iyo riyaheena iyo haddaan Soomaali nahay waxba kama faa'iidno caana booraha holan buu nooga yimaada anagu intaas oo xoolaha marka ya adduunka ma taqaanaa sidoo uga kala faa'iido noo sheekh si ugu faa'iido adduunka sidoo kala faa'iido war ma ka haysa hilib caano iyo haragiiso dhar laga tolo kaba laga inuu harag waa tuurnaaba waxa uma naqaan dhogorta warkeeda bal finaanadahan aawadato oo dhaxanta ku weynayso ku dhogor baa laga soo sameeyay ya oo qaaliga ah dhogorta laga soo sameeyay marka aqoon bay u baahan tahay Soomaa aqoon haday heshana maamul ay u baahan tahay maamul haday heshana amaanay u baahan tahay ilaa waxa jira aqoontii leh maamulkiina yaqaan laakiin tuug ah kuma tarayo
sheekhana waqtiga isbedelay ma la dhihi karaa waagi hore Soomaalidii waa cali dhuux iyo gabayadoodii iyo xoolaha saasa la isugu dili jiray ayasha la isku haysan jiray wax la dhoofiyo iyo wax la soo sameeyo waaga xoolaha dhaqan jireen hodan bay ahaayeen iyaga xoolahooda intay dhaqdaan beeytooda cuni jireen adduunkuna adduunkii ma ahayn adduunka isu furan oo isgaaray ma ahayn adduunku marba heer buu maraya marka waagaas iyaga xoolahooda dhaqan jiray cid kale u geeyaan male iyaguna waa dhergsanayeen cid kale wax ka raadsadaan male laakiin maanta adduunka waa isku ruuxay xoolaha waa laga qaadaya waa laga dhacaya adiga waa gaajoonaysa alaab kale lagu keenaya raashin kale lagu keenaya adduun kale la kala iibsanaya adduunku isu furmay marka adduunkii maaha marka waxaan ka wadaa hadda waxaan ku siinayaa tusaale yar hadda masalan caanaha xoolaha wadamo waxaa jira dhaqaalahooda ugu badan caanaha xoolaha uu ku taagan yahay caanaha xoolaha bas oo weliba xoolaha aan dhan maaha lo'da keliya ku taagan yahay caanaheeda bas sheekhana inagu intaasoo xoolaha haysano oo hadda dhagayso aan kuu sheegay lo keliya waa geel ma haystaan arina ma haystaan ya si fiican tusaale Holland hadda waxa laga yaabaa qaar inay halka kaga jiraan Holland Netherlands wadanka leh ya waxay dhaqdaan 1 milyan oo lo ah 1 milyan oo lo'da caanaha badan bay la soo hareen inta kala hufeen bay waxay la soo hareen lo'da caanaha candada weyn ma jiideys oo gaari jirgaan waxa loo gelinayaa tuubo fuusta ka buuxsan fuustooyin baa laga buuxinaa taangiya 1 milyan oo lo ah bay dhaqdaan way dhaqdaan inagu ma dhaqano way dhaqdaan iyo inagu waa raacnaa inagu waa rafaadina ma waa raacnaa kaliya bas loodu way fooftay waa ka daba foofna waa raacnaa si fiican waxay aadaa meel biyo ka soo cabto waa daba galnaa si fiican gabdhaha iyo wiilasha ku darnaa hadhowna markay galabtii soo noqonaysana waa soo raacnaa maxay tahay iyadoo daashay oo waxba aanana aan lahayn waxa hilibna sidin ayaa ku imanaysa baris waxna meesha ka bilaabaysa reerebel waxa inta soo lo u leeyahay kun lo u leeyahay aduu ku soo qaylina wuxuu leeyahay kaas Holland jooga $50 ii soo dir $100 oo masruuf ii soo dir buu oranaya isagana waxa haysta 500 600 neef ninka Holland joogana 10 neef buu haysta 10 neef 10 ka neef baa la dhaqaa biyihi baa loo dhigaa cawski baa loo dhigaa halkan ay ku meeraysanaysaa meesheeda ma dhaafayso marna biyihii afka gelinaysaa marna cawskay afka gelinaysaa marna hawaday u baxaysaa marna dugaalkay gelaysaa ya halkaasuu ba iskaga daranaysaa waana neefkii caanaha lahaa neefafku isirey kala leeyihin dadku sida ay waxa loo kala qaadaysa dadka Soomaaliya gabar baa 10 dhalaysa gabarna 2 dhalaysa Soomaa ya habaryateed 10 dhalaysa 9 dhalaysa walaasheeda kaleeto waxa laga laba kaliya ama hal kaliya in dhasho kuwana waxba ilaahay baa subhanahu wa ta'ala kala qaybiyay xoolaha laftigooda noocyadaas ay leeyihiin neefaf waxay leeyihiin tarmaya neefaf caana badan neefaf hilibka ku fiican waxba ku fiican marka wixii iyagu way kala hufeen maxay ku kala hufeen aqoontii maxaan iri inaga waa maqantahay hadday joogtana lagama faa'iideysan amaanadeedii baa lagaga faa'iideysan ama cidii cilmiga u lahayd baa laga faa'iideysan marka xoolahaasi caanihii intii kaliya ma noqon waagi hore caano kaliya la cabi jiray hadda waxaa laga soo saarayaa caano dhay ah caano skim ah oo laga saaray subagii laga saaray caano kasii light ah oo kasii yar 3% ah caano yogurt ah oo adag kuwa waxaasoo dhan waa uga horreynay annagu wayna horumar kuwa garoor waxaa laga soo saarayaa subag si fiican badar waxaa laga soo saarayaa cheese ya waxaa laga soo saarayaa labeen waxaa aakhirtaanka laga soo saarayaa caano boore inaga laynoo soo diraa waa kii ugu liid inaga cheese laynooma keeno laynoo soo diro ma cunayno yogurt laynoo soo diro meel kale loo diraa laakiin marka wadamadu hadda مثلا tusaale u soo qaatay Holland laakiin Ireland baa kamida wadamada Yurub waxa kamida Denmark Danishka wadamada ay aadka uga hodan ugu ah lo'dooda yarta waliba Denmark 500,000 waay wax ay dhaqataa 500,000 half inta Holland waay haddana caalamkan carabaha la yiraahdo oo Soomaaliya ku jirto oo dhan bay u dhoofiyaan wallahi waa miyaa loo isla marayo bay u dhoofiyaan
saas kuwa kaleeto caano badan ma dhoofiyaan hilib bay sameeyaan hilib yaa ka mid ah Australia iyo New Zealand waxa laga yaabaa dad inay naga dhageysanayaan Australia waxay dhaqataa wanankaasay dhaqataa lambiga New Zealand wax kale kuma noola petrol kale ma laha macdan kale ma laha wananka waa wananka wan maalka jirta wanka aan sanadka gaarin lamb bal dhaha afka qalaad ya hilibkiisa hilib macaan oo fiican waay waxay ku qarqiyaan China oo agtooda ah oo 100 milyan iyagu 4 milyan ku waraabiya kuwan waa 4 milyan kuwan New Zealand waa 4 milyan si fiican 5 milyan laakiin marbay xoolahoodu waxay gaareen xoolahoodu 70 milyan xoolihii waa ka batay wanankiiba 70 milyan gaaray iyaguna waa 4 milyan qofkii misa ku su'aal dhowr si fiican si fiican xoolahaas ay dhoofiyaan waa ka lacageysteen marka waxa weeye waxaas wuxuu u baahan yahay aqoon iyo maamul nin Soomaaliya waxaan soo qisada soo dhameynaya Soomaaliya ma looga faa'iideysan karaa haa looga faa'iideysan karaa sidee cilmigeeda dad kale dad Soomaaliyeed baa jira xataa ku takhasusay waa inay iyagu ka shaqeeyaan idinka dhalinyarada ah hadda waa inaad ku baraarugtaan hanti dalkiina petrolka ka fiican inay taalo oo aad ka shaqeysaan oo ku takhasustaan maha computer iyo kaliya inaad kulligiin wada gashaan iyo public administration iyo IT kulligiin inaad wada gashaan kulli ma cunayna anaga IT kulli waa aragtay iyo public administration ma wada cunayno moogtaa qaar baan u baahanahay qaarna waxaan u baahanahay khubaro sheekhana waxaan ka faa'iideeyay cilmiga dalka baahan yahay in la barto waxa ma dhow lagu dhahay nin baa wuxuu bartay sida barafka loo dhalaaliyo Soomaaliya baraf laga dhalaana meelada sheekhana maxaa baraf iyo dhalaalis noogu jira waxa inagu engineering ama science-ka wadamadu waxay ku hormarayaan waa science iyo technology nadariyaadka cilmiga nadariga social science-ka la yiraahdo wuu kaalmeynaya waana takhdiidinaya laakiin cilmiga kale to farsamada ah baa loo aad loogu baahan yahay oo technology-ga ma maqlaysay Dr. Mahathir mudakiraadkiisii habeen aan dhageysanayay wuxuu lahaa anigu markii aan imi prime minister ka noqday Malaysia waxaan wasaaradda tacliinta markii u horeysay la geeyay waxaan ka wareejiyay focus ka saarna waxyaalaha social sciences ka dadku u badan yihiin inaan ka wareejiyo oo xagga cilmiga iyo science-ka iyo technology-ga aan u leexiyo si dalku taas ku hormaraya oo adduunka kula tartamaya marka nin Soomaalida marka waxayan helin Soomaalidu hadda waa laga faa'iideyn karaa xoolahan hal shay baan ka hadalnay caawa dhan ka hadlayna waa xoolaha badda kamayna hadlin beerahana kamayna hadlin xoolaha kaliya wali ka hadlayna xoolahaasu Soomaaliya kaligood baa waxay u noqon karaan wax si degdeg ah fiiri neefka ariga 2 jeer buu dhalayaa 2 jeer sanadkii bisha September April u dhalaya September waxaad geynaysaa suuqaad geynaysaa neefafkii ahmiga ah boqol haday meel ku leen waxaad haysataa 6 bilood kadib waxa laga yaabaa 150 inaad haysato 6 bilood oo kale markaa ku dartana 250 inaad haysato oo 100 kale sanadkii ay ku biireen si fiican kontona aad iibiso kontona aad deyso ku celiso ay si tarmaan si fiican haddaad 100,000 marka samayso 8 bilood gudahood ama 9 bilood gudahood waxaad haysataa 200,000 ama 300,000 oo neef baad haysataa halkii $100 buu marmarka qaarkood gaaraya halkii si fiican halkii $100 buu gaaraya meesha fuustada petrolka ay gaarayso $25 ama $30 marka waa hanti weeye hadda waa waxa Australia waxaan ku eri waxay u dhoofisaa oo contract la gashay dawladda China ay u dhoofisaa hilibka Chinese marka inagu meesha hadalkii ugu kicisay waxa weeye nin baan arkay khabiir ah oo Soomaaliyeed maalin dhawey wuxuu ku takhasusay xoolaha sida loo dhaqo kaliya dalalka Yurubna dalal kamida ayuu waliba dadka madaxda ka ah xoolaha uu kamid ahaa waa Soomaali sax wuxuu yiri tijaabaan sameeyay waxaan iibsaday sanad dhexdaas 2 sano ka hor waxaan iibsaday 30 neef oo ida ah baan iibsaday sheekhana adaa warhaya qaybna wanan tahay 6 qaybna ay tahay laxo tahay beerta aan geeyay cawskan biyaha u fidiyay cawskan u waxayay waa u dhigay si fiican bishii 9aad isla sanadkaas 110 baan haystay buu yiri neef
يا سفيع بقول يطمن نخ بانهيس بانهيس waxa ku biiro kontomeeye kale 800 kale ku biiro 600 kale ku biirtay oo dhasha oo dhalatay qaar baa laba u dhalaaya mataana dhalaaya soo tuuraya 6 bilood kadibna waaba neef weyn oo suuq gelinayso 7 bilood oo ahmiya oo wan ah bishii September suuqan waxaan geeyay buu yiri 12 wan haye ya oo midkii $90 ila $110 laga siistay sidoo ugu carafaystaan dhaqsuuga marka wuxuu yiri xoolahan dhulka yaala waa petrol dhulka korkiisa saaran petrolkan soo kama hadlayno 5 kilometer badda hoosteeda jira kan wuxuu yiri Facebook isku soo qoray waa petrol dusha korkiisa socda buu yiri meenu ka faa'iideysano sifiya marka waxaan ku yiri dal saasi ma noqon karo wuxuu u baahan yahay dawladnimo iyo nidaam u maamula si amaana leh ugu maamula dadkeedii aqoonta lahaana oo Soomaaliyeed u raadiyo oo ka hawlgeliya sifiya adduunka aqligiisa sida loogu shaqeysanayo ugu shaqeeyo adduunku hilib u baahan yahay hilibkiina inaga hayna laakiin cidna kama iibin karno waan ka gaajaysan saas darteed marka inta islaan hadalkaygu ku soo koobaya waxaan rabaa idinku inaad maskaxdaas aad ku fikirtaan ha noqoto beero ha noqoto technology ha noqoto dalkiina hanti baa ka buuxda sidaad maskax fiyow oo Soomaalinimo iyo mustaqbal iyo aqli iyo aqoon iyo amaana leh adugu maamul lahayn dhalinyaro ka fikira markaas Soomaaliya loo soo hijroonaya anu waxaan tawqacayaa ku riyoonaya Soomaaliya in soo aadi doono oo shaqo laga soo doonanayo oo dadku u soo hayaamayaan oo Yurub ka imanayaan oo Carabaha ka imanayaan baasaboorkeeda la isku dilayo sidee ku heli karaa baasaboor Soomaaliya sidee ku heli karaa iqaamad Soomaaliya waqti ba imanaya la oranayo seen ku heli karaa laakiin waa inaad rag noqotaan iyo gabdho raga waa inaad noqotaan insha Allah sheekhana aad baa ma santay caaw wax badan kuma daalinayno maxaadirooyin kala ku dhiman waxa way su'aalihiina habeen damaan u dhigan doonaa hadii Allah idmo waa ku fasaxana sheekhana barakallah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تاد بوم سنتين